كبح حفلة نوعا وكله مقدشو كما أيسن دعمبا أنت تاريخ الله حسوسته و1 مليون بلاس فرانتي جيلس إسواتها oo ay ka soo qayb galeen fanaaniintii ugu badnaa magaalada Muqdisho waxay muuqday Ismaaciil Arka halkan waxa ka muuqata Xamdi Bila inta waxa ka muuqda Maxamed Jaamac halkan waxa ka muuqda Kin Arash inta waxa ka muuqda Dayax Dal Noorshe iyo xaajiyadiisa wada socda waa iskoor cusub Siham Tahliil salaan halo taago ay sheekadu maraysaa waxba kaaga daranba qaabka faraantiga loogu gelinayo in loo jilba jabsaday waxa waaye adkaatay maahan bahashan waxa ay noqonaysaa wax kale marka Soomaalidu ay arkaan wax ziyada ah waxay yiraahdaan sheekadan waa sheeko kale ama wax kale السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال الدنيا ملك استوى كجوكتان وقتها هذين وعداد كسر دواد صحاب جنال يمقال حيسي سوتا مقال كان مقال هذا كلوا وكدوبين هاي قبل دي سهام تهليل هاي مقدشة وحي دقتي سكور أيضا صورة قل عين حلية صوص عضو إن لجبيه إن يدور قفود اسكت جان موي وأذكتها سكور كنوع وكلا إن لجبيه وحي كل عدي دوان 1,000,000 أو فلوريسا برتا تيك توكا oo ay Soomaalidu aad isugu faanaan ilaa ay haatan waxa uu taagan yahay marxaladda TikTok Soomaalidu followers-kiisa 2 milyan oo ay hogaaminayso Samiixa Qaliil iyo waliba gabadha lagu magacaabo Shushu Cabdalla kuwa kalena way ku soo socdaanoo meesha ay tahay Siham Tahliil laakiin milyankeeda wuxuu ahaa mid xadkabax ah oo ay ugu dabaaldegtay si la yaab leh iyadoo dabaaldegga 1 milyanna uu ku lamaanaa حفلة فرانتي جلسك 1 مليون هورا لو جاري حفلة هورا لو دكتي محيطها هي حفلة سهام تهليل وحا وجود وين هاي حفلة دي كله سهام تهليل وحكسو قادنا يا خذوا بس الدحة أو حفلة دي هوري وديجر وجود وين هاي حفلة كو حفلة 1 مليون وحا كل معنا حفلة دي فرانتي جلسك لكن Soomaali badan ayaa siyaabooyin kala duwan uga hadlayay sheekadan kuwa waxay yiraahdeen waa friend oo kaliya saaxiibtinimo caadi ah ayaa ka dhaxeeya halka kuwa kalena ay ka soo horjeedeen oo ay lahaayeen faraantigan loo jilba jabsaday saaxiibtinimo ka weyn maxaa jir siday doonto ha ahaato ama xabiib ha ahaato ama saaxiib caadi ha ahaato kulay way wadawaneed xafladaha kale arinkaas qodobka labaad oo qodobka ugu muhiimsan score kana ah una yaala Siham Tahliil wuxuu yahay fanaaniintii ugu badnaa ayaa ka soo qayb galay xafladeeda waxaan ka xusi karayaa fanaaniinta ka soo qayb galay kuwooda ugu caansan ugu qatarsan magaalada Muqdisho waxa ugu horeeya fanaanka weyn abaha romantiga Soomaaliyeed mudane Dayax Dal Noorshe oo marwadiisa gacanta midig ku haysta sidoo kale waxa xafladda ka soo qayb galay xidiga la holin la yahay xilliyadii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho ku qabsaday codka guuxa sida fanaanka Xasan Aadan Samatar Ismaaciil Arka sidoo kale waxa ka soo qayb galay xafladdaasi oo kala kiciyay hees gaarana u qaaday Maxamed Jaamac waxa sidoo kale aanan ka marnayn oo hees la yaab leeyahay hees horay loo qaaday isugu dartay xafladda xidigta Muqdisho Xamdi Bilan waxa sidoo kale xafladda ka soo qayb galay Kin Arash xidiga raabka magaalada Muqdisho marka xidigan waxa waaye xidig weyn oo dhanka raabka xidiga ayaan ku mashquulnay Siham Tahliil aanu imaado Siham Tahliil qodobka saddexaad oo xafladda markii dambe u bedelay murugo islama kana dadku ay saway inay ku soo xoomaan waxay ahayd in Siham ay go'atay dhanka waalidka hooyay aabo inta xafladda ay socotay waxay mar xafladda isu bedeshay ilmo oo dadkii meesha wada yimid oo idil ayaa wada ooyay walow markii dambe xaaladdu ay degtay isla markaana jawiga uu ku soo noqday si caadi ah haddaba su'aashiis weydiinta mudan waxay tahay waa tuma Siham Tahliil
maqalkeeda iyo arageeda markii ugu horeeyay bulshadu xagee bay ku arkeen maxayse tahay waxa ay ku soo canbaxday Siyaam Tahliil waxay ka tirsan tahay gabdhaha reer Muqdisho isla markaana kuwada ugu caansan kuma soo canbixin YouTube iyo heeso iyo waxyaabo la mid ah laakiin waxay ku soo canbaxday iyadoo sameynayso xayeysiino isla markaana ay weheliyaan gabar kale iyo nin lagu magacaabo waa sheeko kale Muqdisho iyaga ay u kala xirneed idahayada badankoodna iyaga ayaa qaadanaya laakiin xilli dambe ay Siyaam Tahliil u xuubsiibatay dhanka iyo YouTube-ka TikTok-eedana ay si toos u kala kacsatay arageeda iyo maqalkeeda meeshaas ay ugu horeeyay xilligan score ay ka dhigtay magaalada Muqdisho scorekaasi ayaa si private ugu yaalo uma sii talaabay dhanka iyo shakhsiyadeeda iyo nolosheeda gaarka ah laakiin inta ayaan ku soo koobaya qaar kamid ah muuqaaladii xalay gelgelay baraha bulshada Soomaalidu ayaan markan idinku dubaya aan wada daawano ugu dambeyn Siyaam hambali ayaan leeyahay walow muranka Farantiga iyo jilba jabsiga uu dhaliyay kuwana ay leeyihiin mar dhow aroos ayaa inoo soo socda kuwana ay leeyihiin waa normal friend siday doontaa ha ahaato hambalyo muuqaalkan inta ayaan ku soo gabagabeynaya mid lamida mar kale meel kale Maxamed Saciid Saxaaf maca salaam Imara Lecture Homes Limited hoygu waa muhiim hanti yeelo Imara Lecture Homes Limited. hoylaantu waa habaare hore u gaar Imara Lecture Homes Limited aad harsatide Hankaagu ha dhaafo hoy kira ah gurbadiisa. horaa loo socdaaye ha ka harin asaagaaga Imara Lecture Homes Limited Hoy ha ka harin asaagaaga Imara Lecture Homes Limited waa shirkad dhista guryaha khaasatan casrigii ugu dambeeyay xafiiskeeda waxa uu ku yaalaa magaalada Nairobi ee wadanka Kenya khaasatan Lenana Road Hurlingham wixii faahfaahinta dheer kala xiriir lambarada shaashada kaaga muuqda balanteenu waa hoygu waa muhiim hanti yeelo